السلام عليكم. مقال كلمة أنت وحنكو برندونا أرجع ذي مغضى وأري إنجليش هديان كنا بغنوا وديت وحنا ربنا إن أرجعان أو ديت أنكو فسرنا سدح أري وأف صومالي سدح أري هو لجمة هل كان أري كلية مرجو حاربنا كلية هل كان أري إن أنكو برنا مقال كلمة أنت إن ديت مركز نقشه وحلاقيها وأسل مركب إن يعني مان كاجا أم مسكح هذا يكون صار عضو أرجع تاريخ أنت بدن معلمين تينا سكولاتك مركي يعني فصلك صوت قلان صبرت منك جسده أما قلنك منك ومعلمك وقبصده وأخرى وحيتها وتاريخ anyway أرجع ديت مركز نقشه وحلاقيها وأسل مركبة إن مان كاجا أم مسكح هذا يكون صار عضو تاريخ أفصل الآن لكن waxaa jirto laba eray kale oo af Soomaali ah loo macnayn kara ama lagu fasiri kara hadii ay jirto intaanan sheegin koor hadii aad taqaano waxaad noogu reebi kartaa faalada hoose ama commentiga hoose marka waxaan raday hadii yani muuqaalkan aan guda galno waxaan hore u sheegay eray oo ah date oo ah taariikh hal eray oo af Soomaali aan hore u sheegay Soomaa waxaa maqan laba eray labada eray maqan muxuu noqon karaa sleedahay erayga date intaan sheegin eray kale waxaan ku siin doonaa 5 second oo 5 second yani aad adiga aad ku fikirto si yani aad maxay raada aqoontaada ama xirfadaada aad yani noo soo bandhigto haduu leeyahay erayga date waa taariikh erayga koowaad aan ku fasirayno erayga labaad hadii aan macnaano erayga date intaan sheegin koor waxaan ku siin doonaa 5 second waqtiga qaado waxa laga yaabaa isku dayaga inuu saxan yahay erayga date waxa kale lagu fasiri karaa lagu macnayn karaa labada qofood ee lamaanaha ah yani markay xiriir ay sameynayaan oo kale waxa la yiraahdaa hasaabe ama shukaansi hasaabe ama shukaansi labadaas eray afka Soomaaliga waa isku mid shukaansi ama hasaabe erayga date waxa kale lagu fasiri karaa macnaha labada wuxuu noqon karaa shukaansi ama hasaabe erayga saddexaad maxaa sleeda uu noqon karaa erayga date macnaha saddexaad wuxuu noqon karaa okay koor intaan sheegin koor waxaan ku siin doonaa 5 second oo ah in yani aad ku fikirto kadibna fikradaada aad noo soo bandhigto mar kale waqtiga qaado waxaa laga yaabaa weli inaad fikirayso leedahay talo muxuu noqon karaa ama yani maxay noqon kartaa haddaan macnayno erayga saddexaad waxay tahay waa timir aad taqaana sooma laga yaabaa erayga saddexaad wuxuu noqon karaa inaad ilowdo laakiin timirta cunideeda ama sidii loo cuno yani ma ilowdo sooma intaas waa kaftan marka muuqaalkeena waxaan rajeynaa in waxyaalo badan aad ku barato insha Allah erayga date waxa loo fasiri karaa saddex macnood koow wuxuu noqon karaa shukaansi ama hasaabe laba wuxuu noqon karaa erayga date taariikh saddex wuxuu noqon karaa maxay raada timir muuqaalka intaas ku ogyahay. Assalamu alaykum, bye bye.